إلى بروسيس السبع عدين سنان كويس أبغى تناقي المهم بحب مهم ودي أكارك هاي ستو إن المعنى تشالا ودي ديال جروب في مثل بلامس هذا شو صدق هي طبعا ده أدرى بشر ساعتنا تضبط إنه مقلني تضبط مع الأربعة ويا سبعة ويا إن شاء الله ودي خير بدي سنيا أمان الله aad goobta codbixinta gasho u gudbi kaarkaaga gudoomiye ku-xigeenka goobta si loo hubiyo kaarkaaga afar u wareeg hubinta indhaha BVS si lagu xaqiijiyo inaad tahay codbixiyihii kaarka lahaa hubinta nidaamka indhaha waxaa laga isticmaalayaa goobaha codbixinta ee 6 caasimad gobol ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaliya 5 u gudbi kaarkaaga xogayaha goobta si liiska codbixiyaasha goobta lagaga hubiyo 6 saxeex liiska codbixiyaasha adigoo isticmaalaya suulkaaga bidix 7 gudoomiyaha goobta ka qaada labada warqadood ee codbixinta muwaadin iska hubi in lagu siiyo laba warqadood mid aad ugu codeynayso murashaxiinta madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo mid aad ugu codeynayso xisbiyada qaranka warqadaha waa inaanay wax hore ku qornayn jeexnayn isla markaana adiga oo murashaxa iyo xisbiga ama ururka aad rabto hortiisa ku calaamadinaya isku tallaabta haddii aad caawin u baahan tahay waxaa ku caawinaya gudoomiyaha goobta ama qofkii kale ee aad ku kalsoon tahay 10 labada warqadood ee codbixinta mid walba gaarkeeda isugu laab si taxadar leh ugu rid warqadda codbixinta murashaxiinta madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen sanduuqa codaynta ee gaaban warqadda codbixinta ee xisbiyada qaranka ku rid sanduuqa dheer 11 mar labaad ku noqo khadayaha goobta si faryarta bidix loo khadeeyo kaarkaagana ka soo qaado 12 fadlan hore u sii qaada kaarkaaga codbixinta si nidaamsanna goobta uga bax mahadsan magaalada Obsiye insha Allah waxaan wadaagaynaa xogtii anaga ururka magana fariimiyo kubishka ayaan gudbinaa dilaa ka dhigo 5 u gudbi kaarkaaga xogayaha goobta si liiska codbixiyaasha goobta lagaga hubiyo 6 saxeex liiska codbixiyaasha adigoo isticmaalaya suulkaaga bidix 7 gudoomiyaha goobta ka qaada labada warqadood ee codbixinta muwaadin iska hubi in lagu siiyo laba warqadood mid aad ugu codeynayso murashaxiinta madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo mid aad ugu codeynayso xisbiyada qaranka warqadaha waa inaanay wax hore ku qornayn jeexnayn isla markaana ay leeyihiin shaabadii goobta si codkaagu sax u noqdo 8 kaarkaaga codbixinta u gudbi khadeeyaha goobta si aad u codeyso 9 kadib gal ila xilka codbixinta oo calaamadii waraaqaha codbixinta adiga oo murashaxa iyo xisbiga ama ururka aad rabto hortiisa ku calaamadinaya isku tallaabta haddii aad caawin u baahan tahay waxaa ku caawinaya gudoomiyaha goobta ama qofkii kale ee aad ku kalsoon tahay 10 labada warqadood ee codbixinta mid walba gaarkeeda isugu laab si taxadar leh ugu rid warqadda codbixinta murashaxiinta madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen sanduuqa codaynta ee gaaban warqadda codbixinta ee xisbiyada qaranka ku rid sanduuqa dheer 11 mar labaad ku noqo khadeeyaha goobta si faryarta bidix loo khadeeyo kaarkaagana ka soo qaado 12 fadlan hore u sii qaada kaarkaaga codbixinta si nidaamsanna goobta uga bax waa magaalada Obsiye insha Allah waxaan siinaa khayr